ayadoo laga ambaqaadayo riboodaadkii ay noo soo gudbiyeen bulshada gobolka Banaadir ku sugan oo baryahan dambe ay ku soo bateen qowleysata qaadata hantidooda gaarka ah intii ay ku guda jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgaladooda kala duwanaa ay ku baacsanayeen kooxaha qowleysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed baryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliiska militariga iyo cid kasta oo leh darees gaar ah tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK47ka bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small army sida mindooyinka iyo wixii la mid ah bulshada gobolka Banaadir oo soo ribood gareeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed baryahan ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir saldhigyadooda kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir ayaa waxa u sahlanaatay caawa in tuugadii ayadoon dhiig daadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dambiyada haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahadcelinayno riboodaadkii iyo sida ay noo la wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka 17 degmo ee gobolka Banaadir saldhigyadooda waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qowleysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow ama saldhigyada si looga gacan siiyo gacan ku dhigida iyo badbaadada hantidooda iyo naftoodaba